السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo tiknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaan goor kasta oo noqon dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha nagama meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan insha Allah hadduu Ilaahay waxaan ku baran doonaa qaabka loo diyaariyo imtixaanada online-ka ah iyadoo la isticmaalayo website free ah. balse marka hore daawada haddii aad tahay saaxiibka cusub channelkeena Hanweyn Media waxaan ka codsanayaa inaad subscribe inoo saarto sidoo kalena aad furto gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee mar waliba hela muuqaaladeena cusub. sidoo kale ha ilmaamin inaad like, share iyo comment aad inoo siiso muuqaalkan. mahadsanid, weligaana guuleyso. waxaad soo gashaa marka hore aad soo kicisaa browserka aad ka isticmaalayso internetka. kadib qaybtaas sare ee Google waxaad ku qortaa socrative.com. kadibna waxaad dhahdaa enter. marka website-ka qaabkan u soo kacana waxaad imaataa qaybtan ay ku qoran tahay login halka jugsi. kadibna waxaad ku dhufataa teacher login. marka uu qaybta ku keenna waxaad doorataa qaybtan ay ku qoran tahay create account halka ku dhufo. kadib waxaad abuurtaa account-ka magaciisa hore iyo magaciisa dambe. طبعا haddii aad isticmaalayso magaca jaamacad ama magaca iskuul marka sabab magaca iskuulka ama jaamacaddu waxa uu yahay aad gelinaysaa labada qayb first name iyo last name-ka. maadaama uu tijaabo yahayna waxaan gelinayaa Hanweyn Media. halkan waxaad gelinaysaa emailka. mar kale ayaadna ku celinaysaa isla emailkii aad gelisay. halkan waxaad gelinaysaa password. isla passwordkii mar labaad ku celi. kadibna waxaad dhahdaa next. halkan waxaa laga doonayaa inaad geliso wadankaaga. kadib qaybtan waxaad ka dooranaysaa nooca uu yahay mashruucaaga. mar haddii uu yahay dugsi hoose iyo dhexe ama jaamacad wuxuu doonaba. aniga waxaa la imika primary secondary school waaye. kadib waxaad dooranaysaa iskuulkaaga. waxaa la imika halkan laguma xusin laguma sheegin. kadib waxaa la iskuulkaaga magaciisa sheeg. waxaan leeyahay Hanweyn Media. kadib halkan waxaad gelinaysaa roolka ama doorkaaga. waxaan leeyahay halkan waa teacher. kadibna waxaan leeyahay I agree. kadibna next. dabcan markaan waxaan dhameynay qaybtii labaad. waxaan u dhiman keliya hal qayb oo qayb saddexaad ah waana qaybtii ugu dambeysay. halkan waxaa lagu soo bandhigay laba nooc oo account-kaaga ah. Socrative qaybtan waa free waana bilaash, wax lacag ah ma ahan. kanna sidoo kale waa qayb lacag ah waana hab professional ah ama hab caalami ah. laakiin anaga maadaama aan korno isagoo free ah kan ayaan ku dhufaynaa oo aan dooranaynaa. kadibna waxaan leenahay finish. dhammaan marka tillaabooyinka hadda aan qaadnay waxay qusaysaa oo keliya macalinka ama qofka mas'uulka ka ahaa imtixaan diyaarinta habkan online-ka ah. markii aad halkan imaatana dabcan waxaad ku dhufanaysaa warqadan qaybtan soo dhaweynta ah. ayaad leedahay. hadda waad aragtaa halkan waxa ku qoran magacaaga
halkana magac yar oo aqoonsi oo ah koontada aad ku leedahay website-kan. daba si aan u gudagalno imtixaan diyaarinta waxaa la imaanaynaa qaybtani ku qoran tahay quizzes, marka aad ku dhufanaysaa kadibna waxaan dooranaynaa qaybtani ku qoran tahay add quiz. kadib waxaad kasii dooranaysaa create new oo ah mid cusub abuur. halkan kore waa imtixaanka aad diyaarinaysa magaciisa, maadaama iminka anaga imtixaanka aad diyaarinayna tijaabo uu yahay tijaabo asaga qoraynaa, balse haddii ay tahay jaamacad ama iskuul mid loo diyaarinayo dabcan waxay aad u fiican maadooyinka in halka lagu qoro hadda maadada magaceeda waxa uu yahay. aniga waxaan iska qoranayaa kaliya waa tijaabo. dib imtixaankaaga inta qayb ka kooban yahay ayaad samaysanaysaa. dabcan su'aalaha halkan yaala waxay ka kooban yihiin 3 qaybood oo ah qaybtan oo multiple choice-ka ah oo doorasho ah, qaybtan oo true iyo false ah oo sax iyo qalad ah, ama qaybtan kale short answer oo jawaab gaaban ah, taasoo macnaheedu ay tahay in ardayda la weydiiyo su'aalo toos ah. waxaan ka bilaabi doonaa qaybtan koowaad oo multiple choice ah. halkaa ku dhufo. dabcan wuxuu ku siinayaa su'aasha koowaad iyo 4 jawaab oo doorasho ah. dabcan markaa su'aasha qaabkan u geliso 4 jawaab ee meesha kugu yaalo waxaad dooranaysaa jawaabta saxda ah. kadib halkan geeska ah calaamada buluuga ay saaran tahay tigtaas ayaad jogsiinaysaa. dabcan iminka waa lagu xareeyay su'aasha koowaad. markan soo kale waxaan rabaa inaan geliyo su'aalta ka duwan oo true iyo false ama sax iyo qalad ah. halka ayaad jogsiinaysaa. su'aal waxaa leeyahay cali waa 60 sano jir. halkan waxaan dooranayaa true iyo false midkii ay ku tahay jawaabta sax ka soo qaad. haddii ardayga loo dhigay 10 uu ku baranayo in cali uu jiro da' gaar ah, haddii ay sax ay ahayd in cali uu 60 sano jiro, halkan waxaan ku dhufaynaa true. kadibna waxaan leenahay halkan tigtig ku qoran tahay ayaan ku dhufanaynaa oo jogsinaynaa. dabcan su'aasha labaadna iminka jawaabteeda waa lagu xareeyay waana jawaab sax ah. markan waxaan gudbaynaa su'aasha saddexaad. waxaan ka dhigaynaa su'aal oo direct question ama su'aal toos ah oo short answer leh ama jawaab gaaban leh. ku dhufa ayda. dabcan su'aashan iminka waa su'aal toos ah, waana muqdisho gobolkee ayay u tahay magaalo madax. dabcan su'aalaha tooska ardada isku ra'yi ma aha, isku qaabna uguma jawaabaan. ardada qaar si toos waxay u beegsadaan jawaabta, qaarna waxay faale iyo faahfaahin dheer ka bixiyaan jawaabta. markaad halkan waxa aad gelinaysaa inta qaab ay ardada uga jawaabi karaan su'aashan. tusaale waxaan leeyahay banaadir. gobolka banaadir waa banaadir waa gobolka waxay u tahay gobolka waxay u tahay gobolka banaadir. okay kadib waxaan leeyahay halkaan ku dhufaynaa tagta saarinta buluga ah si loo keydiyo. okay marka waa la keediyay su'aasha saddexaad intaanu jawaab ayuu ardayga mid kamid ah kaga jawaabi karaa. haddaba intaas waxay ahaayeen sambalo. marka adiga haddii imtixaankaagu aad u fara badan yahay oo badsan kartaa. dabcan waxaan aad u fiican imtixaanka marka hore inaad soo diyaarsato, kadibna asagoo diyaarsan halkan kusoo guuriso.
dabcan diyaarinta imtixaanka marka sidan usoo gabagabayso waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay save and exit oo ah kaydi ama save garee kadibna ka bax. okay halkaas ayaan ku dhufanaynaa. dabcan quizkeeni iminka waa loo keediyey waana kan halkan ayuu ku jiraa sida kaaga cadna taariikhda ee kuu sheegayso. kadib waxaan leenahay si imtixaankan marka ardayda loogu soo fasaxo isla markaa ardayda imtixaanka ugu bilowdo waqti gaar ah halkan ayaan ku dhufaynaa launch. kadib waxaan kusoo dhufaynaa qaybtan ay ku qoran tahay quiz. kadib waxaan dooranaynaa quizka ama imtixaanka la doonayo in ardayda laga qaado. tijaabo ayaan calaamadeynayaa kadibna waxaan leeyahay next halkan hoose ayaan ku dhufanayaa. dabcan halkan ayaa lagu soo xirayaa qaybta ugu horeyso qaabka ardayda u jawaabayaan. kan koowaad ardayga markuu qaybtan uu soo galo waxaa la weydiinayaa magac. qaybtan labaad ay ku qoran tahay shuffle questionsna waa in su'aalaha la isdhaafsiiyo oo ardayda loo kala duwo su'aalaha la weydiinayo. tusaale haddii arday sax iyo qalad ugu horeysay su'aal goobogelin ugu xigtay mid saddexaad oo toos ugu xigtay. dabcan qaybtan ardayga kale marka su'aasha loo soo bandhigayo waxaa la sameynayaa su'aasha tooska laga bilaabaa qaybtii labaad ee sax iyo qaladka ku xigsanayso ama goobogelinta u dambeynaysa. marka su'aalaha marka in la isku dhex qaso waayo qaybtan waxayna aad muhiim ugu tahay imtixaanka inaan la kala qishin. inta badan imtixaanka marka khadka lagu soo deeyo ardayda waqti gaar ah loo qabtaa si ardaygu marka uu aan waqti ugu helin in arday kale uu ka qasho imtixaankan ama uu kaalmo weydiisto. waxaa loo kala duwayaa ardayda su'aalaha qaabka loo weydiinayo iyo lambaradooda. dabcan qaybtan saddexaadna waa in la isku dhex qaso sidoo kale jawaabihii sida su'aalaha la isku dhaafsiiyo kale in jawaabaha ardayda sidoo kale ayaga loo kala duwo. qaybtan afraad waa show question feedback. su'aasha marka ardayga uu ka shaqeeyo inuu saxay inuu qalday sheegay taas marka ma fiicna inta badan in ardayga la tuso. marka waad ka qarinaysaa saxaas kaliya ugu muhiimsan saxdaas ayaadna ku dhufanaysaa kadibna waxaad leedahay start. dabcan iminka hawsha aan fogeynay waxay tahay in imtixaankii aan diyaarinay isla markaan ardadii imtixaankii loo bilaabay. wejigan hore wuxuu ku kooban yahay oo kaliya waxaa laga rabo macalinka oo ah in imtixaankii uu dejiyo isla markaan ardada u iclaamiyo imtixaanka xilligii uu bilaabo lahaa. wejiga labaad ee muuqaalkeena waxaan ku baran doonaa qaabka ardayga uu soo galay website-kan isla markaan uga shaqeyn doono su'aalaha imtixaanka ee la hordhigay isaga. haddaba muuqaalka inta aan kulmi doono walaalkiin cabdirasaaq cabdullaahi idinku dhaafay sida ay nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.